Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaad ku soo dhawaataan koorsigii aan ku barnaynay sidaan u samaysan lahayn website lacag la'aan annaguna wax kood aanan qoran. Halkan waa muuqaalkii shanaad. Waxaan ku qaadanaynaa qaabka aan loogadan u diyaarin lahayn kadibna in aan website-keena aan loogada ugu bedelin lahayn. Sidoo kale halkan waxaan ku yaalo logo la yiraahdo Balcon in waa looga yaris ee ka soo muuqanayso website walba korkeeda. Marka ayadana waan samayn doonaa sidoo kale website-keena waan ka bedeli doonaa. Hadeertaan wuxuu default aan u qaatay midda blogger-ka ah. Marka waxaan isku dayaynaa inaan loogadan aan bedelno sidoo kale loogadan aan sameyno. marka ugu horreyn waxaa qasab nuga ah inaan loogada soo sameyno طبعا waxaan isticmaalayaa labadan application format factor midkan la yiraahdo iyo sidoo kale software Photoshop-ka. hadeertaan saa arkaysid loogadeeda halkan ay ugu diyaarsan tahay. sidoo kale waxaa sameysaa loogada oo website-kaaga isticmaalayo isla size-kaas waa inaad qaadataa. marka halkan waxaan ka tagaynaa in template-kan isticmaaleyno kadibna loogadiisa ayaan waxaan leenahay control C. markaan soo koob galeen loogadii halkan ayaan ku paste gareynaynaa laanu ma rabo in oo midkaas xagga aan saameyn ku yeeshto. kaliya hadaa wax ka beddelay waxaan rabaa kan inaan ka bedelo. طبعا shaqada way kala fududahay. midka aan Falcon-ka aad ayuu u fudud yahay kaliya sawirkaas ama loogadeeda ayaa waxaan ka dhigi lahayn Falcon balse waxaa dhib badan in aan loogadan oo website-ka inaan sameyno. marka ayada aan ku horumareynaa laanu muuqaalkeeda xoogaa waxaa dhici karta inuu wax yar naga dheeraado. soo sidaas awgeeda Photoshop-kii aan soo kicino luqadda English aan ka dhigto. okay in Photoshop-kan uu soo kacay kadibna waxaan sameynaynaa meeshan ay ku qoran tahay file menu ayaan waxaan leenahay click kadibna open ayaan halkan ka dooranaynaa. markaan open dhahnana waxaan soo furi doonaa loogadii aan soo diyaarsanay si aan example ugu dhigano. waxaan tagaynaa desktop-ka kadibna loogadan ayaan waxaan leenahay double click. double click markaan dhahnay muhiimadda waxay tahay cabirka size-ka inaan ka qaadano. soo waxaan sameynaynaa midkaan aan iska qarino kadibna waxaan soo gashan doonaa loogadeena. soo meeshaan aan imaanaynaa kadibna waxaa halkan ka dooranaynaa place markaa dhahdid desktop-kaan tagaa waxaa halkan ka sii doonaa loogadii kale click ayaan dhahay kadibna okay automatically loogada way soo gashay. marka loogadii waxaan u baahanahay inay dhankan ii tagto. soo wax yar aan soo jiido waxaan leeyahay meeshaan ayaan ka rabaa. okay meeshaas markaan dhigano halkan waxaan ku qori doonaa magaca website-keena. waxaan leenahay Somali laakiin ugu horreyn waa inaan ka bedel ka dhigtaa Somali share. waa qoraalka waxaan u moodaa inuu white yahay marka waxaan leeyahay black ka dhig. Somali Share Education Network. I don't know why meeshan ay farq tahay. soo noqdo waxaan ka rabay in qoraalka capital ay noqdo marka mar labaad ayaan qoraynaa Somali Share. kadib aan kala gareeyo waxaan halkan ka dooranaa bold kadibna waxaan leenahay enter.
control enter markaan dhahnay qoraalkan halkan aan keeno waxaan sameynaynaa control T aan leeyahay kadibna control T markaan dhahay control T markaan dhahno qoraalkan ayaan weyneynaynaa okay intaan waa enough sidoo kale waxaan rabaa inaan qoraal kale hoos aan ku qoro in education network ayaan dhahay kadibna almost waxaan u baahanahay ayagoo idil capital inay ii noqdaan so waxaan u maleynayaa inaan capitalka midda ka dhigaysa aan damiyey mar labaad aan qoraalka ku celiyo education network okay qoraalkii markaan qoranay waxaan isku dayaynaa inaan qoraalkan dhexda aan geyno okay midaan kaliya ayaan hadda kala gareynaynaa kadib ama inka aan ka doorto kadib control T ayaan leeyahay control T markaan dhaho wax yar waxaan rabaa inaan kor aan u weyneeyo sidii loogadaas madaxeeda aan xogaayar ugu dhaweeyo kadib intaan markaan sameyno waxaan leeyahay control enter markaan dhahay waan iska save gareynaynaa intaan ayaa naga badan kadibna saan u save gareey waxaan leeyahay alt F A waxay u dhigantaa save as kadibna meeshan waxaan ka dooranaynaa PNG because ma rabo inuu wax in background uu lahaado hadda saad arkaysid background waa faaruq marka magaca aan ku save gareynayna waa magac kale aan iskaga bixinaynaa waxaan leenahay my logo kadibna save ayaan leeyahay sidoo kale halkaana save ayaan leenahay hadeertaan uma baahni aan iska xiro in photoshopka waxbaan oo save gareyn ayaan leeyahay sidoo kale waxaan soo kicinaynaa application la yiraahdo format factor okay application markuu ii soo kaco waxaan halkan ka dooranaa in tabcan waxaa laga yaabaa inuu adiga video ku ahaado balse waxaad dooranaysaa picture markaad dooratid saad arkaysid intaanoo picture ayaa awood u leedahay inaad bedeshid marka midkaan u baahannahay waa midkaan ay ku qoran tahay iconic markaan dhahno kadibna waxaan sameynaynaa add a file ayaa leedahay add a file markaan dhahno kadib halkan waxaan ka dooranaynaa loogadii aan rabnay in aan bedelno yani kadibna sidoo kale loogadii markaan aragno waa kala gareynay okay kadibna loogadii markaan soo gelinay waxaan leenahay okay markaan dhahno kadibna waxaan dooranaynaa kadibna layout ayaa dooranaysaa layout markaan dhahdidne layout markaan dhahnana waxaan sameynaynaa meeshan ay ku qoran tahay editkaas ayaan klik gareeyay kadibna meeshaan ay ku qoran tahay input image URL marabno meeshana waxaan leenahay in upload image from computer ayaan doortay kadibna waxaan aadaa qaybta hoose meeshana waxaan ka dooranayaa choose a file ayaan leeyahay choose a file markaan dhahno qaybtan hoose aan usoo dego loogadeeda waa diyaar my logo ah ku qoran aan double click ayaan leeyahay double click markaan dhahno waxaan sugaynaa ilaa loogadan laga soo upload gareynayo hadeertaan loogadan waa laga soo upload gareeyay saad arkaysid intay kasoo muuqatay kadib waxaan leenahay save sidan waxaan kusoo upload gareeyay loogadii koowaad oo aan ugu talgalnay in websitekeena qaadato falconka waa muhiim haddaa rabtid iska dayi kartaa balse aniga waxaan jeclaystay inuu falconkeyga midkaan aan ka bedelo sawirkan yar
saan u bedel waxaan imaanaynaa settingka. dhanka settingka markaad timaadid meesha aan ka qortahay icon aad klik garaynaysaa. markaad klik garaysid halkaana waxaad ka dooranaysaa choose a file markaan dhahno meeshana waxaan kasii dooranaynaa loogadii hadda yariista ahayd aan klik garayno kadibna save ayaan leeyahay. waxaas ka fiican inta oo sidan u wareegsanaya waxaa inaa sugtid laanna wuxuu sameynaa kusoo upload gareeyo. kadibna waxaan imaanaynaa qaybtan user site-ka waxaan leenahay refresh. laga yaabo inuu qaatay wax yar aan refresh dhahno. ugu horreyn loogadii aan soo gelin waan ku guuleysanay balse waxaa rahay midaan kale ayadana still wuu wareeginayaa. marka waxaan sugaynaa ilaa oo wareegtinkan dhaafayo laannu in qadka marmar qaar culeys ayuu iska noqdaa soo saas awgeeda balse 100% loogadaada way qaadan doontaa. waxyar aan u kaadino bas. saad arkaysid meeshaan wuxuu qaatay loogadii halkan aan soo upload gareynay. videogana halkan uu ku eg yahay. videoda xiga waxaan ku gali doonaa qaabka menuyada iyo waxaan aan u bedeli lahayn. intaan muuqaalka xiga aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.